بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، walaalyaal السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبرنامجكeenii ilbaxnimada islaamka maanta in sha allahu tacaala xalaqadan waxaan uga hadlaynaa ibnu taymiya iyo casrigiisii. ibnu taymiya raximahu llahu tacaala wuxuu ahaa shaykhu lislaam تقي الدين أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. مقعيسا waxaa la dhihi jiray أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية. wuxuu dhashay رحمه الله تعالى sanadka hijriga islaamiga markuu ahaa 661 hijriga oo ku aadaneyd 1263 milaadiga. waxaa laga soo dhaafay casrigii ibnu taymiya raximahu llahu tacaala 8 qarni oo dhow. ibnu taymiya raximahu llahu tacaala waxaa la dhihi karaa waa caalimka muslimiinta hadda waaqicooda aadka loogu ta'auray, qaabab kala duwana loogu ta'auray. waxaa kaloo la dhihi karaa ummadda muslimiinta ah se iskugu khilaafeen qof culimmadooda ka mid ah ay iskugu khilaafeen sidii ibnu taymiya hore uma dhicin. ibnu taymiya raximahu llahu tacaala markii laga sheekeynayo runtii waxay u baahan tahay aqoon dheeraada, waxay u baahan tahay fikrigiisa in si qoto dheer oo cumqiga loo dul istaago, waxay u baahan tahay casrigii uu noolaa in la fahmo. qofka intaasba soo diraaseeya baa ibnu taymiya raximahu llahu tacaala wax ka dhihi kara. xalaqaadka aan idiin diyaariyo oo maaragtay ka mid ah ilbaxnimada islaamka ah wuxuu ka mid yahay runtii xalaqaadka iigu adkaa inta aan diyaarinaya. waayo ibnu taymiya raximahu llahu tacaala fikrigiisa iyo manhajkiisu 800 sano ugu dambeysay oo islaamka aad iyo aad buu u raddheeraa, dad badanna way ku ta'aureen. markaan ka hadlayna ibnu taymiya raximahu llahu tacaala waxaan dul istaagaynaa 3 qodob ama 3 dhinac oo muhiima. qaybta koowaad waxaa weeye araadka ibnu taymiya uu ku yeeshay fikirka islaamka ah iyo waxqabadkiisa, wax soo saarkiisii cilmiyeed dhinaca fiqiga, caqiidada, kutubtii uu ka qoro tafsiirka, xadiidka, kutubtii uu ka qoray falsafadda, tasawufka, nadariyaadka jadalka iyo doodaha iyo aragtiyada siyaasadaha ah uu u soo bandhigay ummadda muslimiinta iyo dunidaba. qaybta labaad oo aan fiirinayna waxaa weeye ibnu taymiya iyo siduu asaga ugu ta'auray sooyaalkii taariikhiga ahaa ee uu noolaa, loolankii siyaasadeed uu dhex noolaa, waaqicii bulsho ee uu ku noolaa, gurigii uu ku soo barbaaray, qoyskii uu ka soo jeeday iyo xiriirkii ula lahaa culummadii waagii uu noolaa, xiriirka ula lahaa culimmadiisa, xiriirka iyo cilaaqada ula lahaa ardaydiisa, siduu uga falceliyey dhacdooyinka waaqiciisii dhacayey, ayadana waa dhinac kale. waxaan kaloo wax ka taabanaynaa araadka uu ku yeeshay fikrigiisa iyo manhajkiisa uu ka tegey waaqici uu ku noolaa. ibnu taymiya raximahu llahu tacaala waqtigu wuxuu noolaa xagga siyaasad ahaan caasimadda islaamka ay duntay oo baqdaad waxaa la dumiyey markay ahayd sanadku 656 yani waa dhalashadii ibnu taymiya 5 sano ka hor. ibnu taymiya wuxuu dhashay 661 baqdaadna wuxuu qabsaday ama uu dudumiyey ninkii la dhihi jiray hoolaako oo maquuliyaanka ahaa 656 5 sano ka hor. ibnu taymiya dhalashadiisa 3 sano ka hor yani 658 waxaa dhacday macrakadii weyneed oo la dhihi jiray caynu jaaluud oo sayfuddiin qutus uu ka guulaystay maaragtay nimankii moqolka ahaa dagaalkii maaragtay xuduudda masar iyo ka dhacay iyo shaam. markuu dhashay ibnu taymiya raximahu llahu tacaala wuxuu ku dhashay magaalo la yihahdo xaraan oo ku taala suuriya. aabihiis iyo hooyadiisba waxay ahayn dad ahlu cilmiya, faamil wuxuu ka soo jeeday ahlu baraka ah. 7 sano markuu ku noolaa magaalada xaraan isagoo 7 jira baa mar labaad haddana waxaa ku soo duulay ciidamadii tataarka. way ka soo guureen oo ka soo hijroodeen. faamilkii ibnu taymiya raximahullah waxay yimaadeen magaalo la yihahdo dimishq oo caasimadda suuriya ah, magaalada caanka oo la yaqaan. halkaas wuxuu ka noqday aabihiis la dhihi jiray cabdulxaliim masaajidka jaamic alamawi masaajidada ugu waaweyn islaamka ka mid ah
sheekh buu ka noqday cilmiga tafsiirku ka bixinayay daarulxadiid buu wuxuu ka noqday maaragtay macallin ka noqday markuu ibnu taymiya raximahullahu tacaala soo weynaaday aabihiis buu wuxuu ka bartay cilmiga fiqiga qur'aanka xadiidka culummadii ku noolaa dimishq oo aad runtii u tiro badnaa buu wuxuu ka qaatay culumta kala duwan ee islaamka 682 meelaha markuu jira 22 jir meelaha ahaa aabihiis baa geeriyooday markaas wuxuu la wareegay sheekhnimadii masjidka jaamicul amawi oo lagu soo dhaweeyay halkaas uu ka bilaabay duruusta iyo macallinimadii ugu horeysay uu noqday asagoo 22 jira waxaa la sheegaa markii ugu horeysay uu tafsiirka uu bixiyay in culummadii dimishqi oo dhan ay iskugu yimaadeen inay bal dhageystaan ninkan dhalinyarta ahoo xaafidka ahoo aqoonta badan iyo culumtiisa ibnu taymiya marka wuxuu noolaa xilli caasimadii islaamka la qabsaday khilaafadii islaamka oo cabaasiyiinta oo 500 sano soo jirtay ay duntay xilli wuxuu noolaa nimankii tataarka ahaa iyo maquulka ahaa ay fara kulul ku hayaan islaamka ay soo qabsadeen dhulkaas iyo turkida dhulalkii salaajiqada waxay soo qabsadeen dhulkii falastiin iyo ardu shaam oo dhan suuriya marka dhinaca waxa kaga socda islaamka dagaal aad iyo aad u adag waxaan la soconaa ninkii howlaaka ahaa markuu Baghdad uu qabsaday inuu dilay khaliifadii islaamka ahaa dad badan oo culumaa uu laayay shacab badan uu meesha ku maaratay uu ku baabi'iyay maktabadii islaamka oo aad ka u weyneed wabiyada uu ku guray uu ka dhiga meel fowdo ah oo weligeedii allaheed aan laguba noolaan dhinaca kale oo galbeedka waxa kaga socday islaamka dagaalkii loo yaqaan al-xuruub as-saliibiyya dagaalkii reer galbeedka ku wadeen islaamka niman waxay ahaayeen kristana nimankaana waxay ahaayeen niman maaragtay wathaniyiin ah kuwa ka yimid dhinaca bariga dhinaca galbeedkana waxaa ka yimid kuwa kristana laba dagaal oo culculus ba islaamka ku socday xilliga ibnu taymiya uu dhashay markuu dhalinyarta ahaa markuu soo weynaaday ilaa casrigiisa oo dhan dhinaca kale islaamka gudihiisa waxaa ka socda dagaalo sokeeye dowlado yaryar baa maaragtay islaamka ka dhex jiray oo ay madax u ahaayeen madax maaragtay liidarnimadoodu ay aad u liidatay siyaasad ahaan ay aad u liiteen xilli noocaas uu dhinaca siyaasadda ka noolaa dhinaca fikriga markaad fiirisid wuxuu noolaa ibnu taymiya raximahullahu tacaala casriga la dhihi karo firaqdii ka go'day ahlu sunna wal jamaaca u ahayd casru dahabi waqtigii ay ugu fiicnaayeen firqooyinkaas oo rag badan oo culamo ah ay u joogeen kutubo badan ay qoreen firqo kasta ama madhab kastana ay la soo baxday culumteedii kuwii weliba ugu muhiimsanaa waxaa markaa jiray shiicada nimanka loo yaqaan aad u adkaa muctasilada suufiyada oo firaq badan iyo madaahib badan kala leh ka mid ahayn kuwa baatiniyiintii ibnu carabi iyo waxaa ka mid ahaa ashaacirta waxaa ka mid ahaa mutakalimiintii waxaa ka mid ahaa dadka falaasifadii ahaa waana waqtigay ugu muhiimsanaayeen oo cid walba ay soo bandhigtay aqoonteedii ibnu taymiya markaasuu noolaa raximahullahu tacaala ibnu taymiya marka wuxuu ahaa nin aad iyo aad runtii u caqli badan IQ-giisana aad u sarreeyey faamil ahlu cilmi ahna ka soo jeeday una go'ay waqtigiisina ku dhameeyey inuu diinta barto diinta inuu difaaco xaqana inuu u gargaaro dhacdooyinka muslimiinta soo marayana inuu ka falceliyo oo noqdo nin mujtahida ibnu taymiya raximahullahu tacaala wuxuu ahaa caalim ku difaacay islaamka qalinkiisa wuxuu ku difaacay sayftiisa dadka isaga ka soo horjeedo ee muslimiinta ahaa oo madaahibta kala duwan iyo firqooyinka kala duwan ahaa wuxuu kula dagaalamay kutubtiisa dadkii kristanka ahaa iyo gaalada ahaa iyo cadowgii tataarka ahaa oo ku soo duulo islaamkana wuxuu kula dagaalamay qalinkiisa iyo sayftiisa marka wuxuu ahaa nin ka muuqday majaalka cilmiga iyo doodaha iyo difaaca islaamka ibnu taymiya raximahullahu tacaala ta'hiirka uu yeeshay oo manhajkiisa ah waxaa ku garanaysaa dhaxalkii uu ka tegey turaas wuxuu ka tegey manhaj ah oo kutubo ah oo 500 oo kutub iyo ka badan ah wuxuu ka hadlay firqooyinka haddaan ka soo sheekeennay si u dhan yihiin jawaabo iyo ruduud buu ka bixiyey iyo culumta islaamka iyo diinta islaamka meelahay ku khaldan yihiin markii la fiiriyo xagga shiicada oo kale wuxuu ka qoro 4 kitaab oo muhiim ah fi الرد على الشيعة والقدرية ولذلك dadka ahlu shiicada ah ama shiicada taageersan aad iyo aad bay ibnu taymiya raximahullahu tacaala uga soo horjeedaan una dhibsadaan لأنه waa ninka ka qoray mawsuucada ama kutubta ugu muhiimsan ee lagu radiyo shiicada suufiyada sidaasoo kale kutubo badan buu ka qoray mutakalimiinta intaasoo kutubuu ka qoray falaasifada sidaasoo kale uu ka qoray waxaa ka mid ah kutubta uu qoray kitaabkiisa ugu muhiimsan oo runtii 10 majaladood meelahaas dar u tacaarud
waxaa la mid kitaabkiisa fataawida ah waxaa la mid kitaabku uu ka qoray maaragtay kiristanka uu ku radinayay markii nimankii kiristanka ahaa oo saliibiyiinta ah ay qabsadeen ardu shaam iyo suuriya iyo maaragtay falastiin iyo dhinacaas waxaa u dhaqan ahaa markay yimaadaanba inay masaajidada kabahooda la galaan ayagoo wata dhalooyin khamre ah dhiig badan ay ku daadiyaan khamre ay ku dhex cabaan ilaa masaajidkii maaragtay baytulmaqdis ahaa uu maaragtay wada dhiig noqday fardihiina ku maashoodeenba dhiig markaas waxay yidhaahdeen dhahara diinu saxiix dhahara diinu lmasiix waxaa soo baxay oo caddaaday oo guulaystay diintii nebi ciise oo saxda ahayd markaasuu ibnu taymiya raximah allahu tacaala jawaab wuxuu ka qoray buug aad iyo aad cajiiba u ah uu u bixiyey aljawaab asaxiix liman badala diina almasiix jawaabta saxda ah oo ku habboon qof kasta oo bedelay diinta nabi ciise calayhi salaam ibnu taymiya raximah allahu tacaala wuxuu ka tegey mawsuuca tharwa ama hanti dhaxal ah oo kutubo ah oo islaamka wax badan u tartay oo uu ka qoray fiqiga iyo caqiidada iyo usuul fiqiga tafsiirka iyo xadiidka jadalka siyaasadda iyo cilmu lkalaamka walidaalika siyaasadda waxaa la yidhaahdaa buug uu ka qoray asiyaasa sharciya waa kitaabka u ahaa dastuurka dowlat almamaalik dowladda la dhihi jiray ibnu taymiya raximah allahu tacaala kutubtii uu ka tegey iyo manhajkii uu ka tegey wuxuu ka mid yahay asbaabta ilaa haddeertaan uu ta'hiirkiisu caalamka u haysto markaad fiirisid ibnu taymiya raximah allahu tacaala si uga falceliyey xilligii uu noolaa iyo waaqicii jiray waaqicaas waxaan nidhi dowlado yaryaroo islaamaa jiray dowlad kasta waxay lahaayeen niman qudaada iyo culumo iyo niman wasaaratul awqaafka ka shaqeeya oo u jawaaba maaragtay madaxda fataawida bixiya dadkana su'aalaha uga jawaabaan ibnu taymiya marka xilligiisii shacabkii markaa muslimiinta ahaa asagay su'aalaha weydiin jireen asagay fataawida u soo dirsan jireen waxaa looga soo diri jiray xama waxaa looga soo diri jiray maaragtay magaalooyinka ku wareegsan Syria waxaa looga soo diri jiray ilaa Falastiin ilaa ardu maaragtay Misr baa looga soo diri jiray su'aalaha markuu marka mas'alo kasta ka jawaabo firqadii ama madhabtii markaas uu jawaabta u bixiyay baa waxay uga dacwoon jireen sultaankii markaas magaalada Dimashq haystay xilligii ibnu taymiya raximah allahu tacaala uu noolaa walidaalika ibnu taymiya waxaa la xiray 7 jeer culimmadu waxay yidhaahdaan markii la isku soo dardaro 7 jeer ibnu taymiya la xiray waxay isla gaaraysaa muddo ah 17 sano meelaha ilaa 16 sano 17 sano maruu 2 sano xirnaa maruu 5 sano xirnaa maruu sanad xirnaa maruu 18 bilood xirnaa qaabkaas ahayd mararkaas la xiray oo dhan waa marar laga wada dacwooday marka ugu horeyso kale waxay ahayd 693 markii ugu horeyso la xiray ibnu taymiya raximahullah ninba kristanaha wuxuu caayay nabiga sallallahu alayhi wasallam ibnu taymiya markii arinta loo sheegay aad buu uga xumaaday waa uu radiyay kitaab wuxuu ka qoray الصارم المسلول وكجا هالله النبي صلى الله عليه وسلم يشرفتي يقيمه إنه حاران تهاي قال لمن أي تهاي قفكي النبي صلى الله عليه وسلم عرض جيسة أما شرفتي وحكى شيء وحال وحري النبي صلى الله عليه وسلم والدفاعي مرة بعد بدنا وحال حري تضابق لي يا شنتي هذانا وحال حري تضابق لي تضبادي هذانا وحال حري إسلا تضابق لي تضبادي دمات كذي هذانا وحال حري تضابق لي سقال تبنكي هذانا وحال حري في آخر حياته رحمه الله تعالى تضابقل يلباتن يلحدي وحنا كل انتي إسلا حبسي مركي قدام يسوي الحري مرة وحال لجو حري النبي صلى الله عليه وسلم بالدفاعي مرة وحال لجو حري نمنكي باطنيين تهاي السوفي ذها وكدع وذي مروا رديي ونمنك آمسا وحدة الوجود نمن وحا هاي آمسا فلسفة هراء فلسفة دي أرسطوية إن إله سبحانه وتعالى طبيعة بإلهي ويهيبة طبيعة نلاشى عن نولها وبإلهي niman waxaa marka jiray oo muslimiin sheeganaya waxa aaminsanaa ibnu arabi iyo waxa kamid ah ibnu sabciin iyo markuu radiyay bay waxa uga dacwadeen sultaankii dimashq fadhiyay xabsi baa loo taxaabay ibnu taymiya rahimahullahu ta'ala mar kale waxa lagu xiray markuu ka hadlay maaragtay sifaadka ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa lagu xiray mas'aladan loo yaqaan talaaq arinta noocaas waxa kala dooday fuqahadii waagaas xilligiisa noolaa xataa xanaabilad ahaa iyo kuwa shaafiiciyada iyo kuwii maaragtay markaas dhowr jeer waxa laga manciyay ibnu taymiya inuu fatwada طلاق وكفتوضه إلى مركز دنبه لو حري رحمه الله تعالى ودمينتي وحا لو حري مركو كهلي مسألة زيارة القبور إلى قبري مارتي وكتجي رحمه الله تعالى سنة مركو وها تضابقل لباتنيو سديت ابن تيمية رحمه الله تعالى وحا كنت أثري عصريا هذا عصب دينا السعودية إيو حركتي وإمامك وها شيخ محمد عبد الوهاب دينا مصر إيو شيخي محمد رشيد رضا
dhinacan maaragtay Bakistan iyo waxa aad ugu ta'athuray Abul A'la al-Madudi rahimahullahu ta'ala dhinacan Hindiya iyo Sheekhi Waliyullah ad-Dahlawi iyo qoyskiisii ninkii ahaa Ismaaciil iyo ninkii ahaa Abdul Aziz ad-Dahlawi waxaa looga ta'athuray dhinacaas Maghrib iyo Abdulhamid bin Badis yaa ku ta'athuray adigu boqolkii sano hadda ugu dambeeyay 200 sano ugu dambeysay wuxuu abuuray Ibn Taymiyyah fikirkiisa iyo manhajkiisa kacdoon iyo baraarug iyo saxwa caalam islaamka si u dhan yahay markii caalam islaamka uu ku habsaday gumaysi dhinaca bariga iyo koonfurta iyo waqooyiga khaliijka carabta iyo dhinac walba isku soo dardar caalam islaamka waxaa 200 sano ugu dambeysay gacanta ku hayay gumaysi iyo tabardari zaa'ida marka inay gumaystigaas uu naga kaco lala dagaalamo oo saxwa iyo baraarug la sameeyo waxaa qayb weyn ka ahaa fikirkii iyo manhajkii Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala hadda 20 sano 30 sano ugu dambeysay aad iyo aad waxa u badnaa Ibn Taymiyyah iyo ku ta'athurkiisa wali markay aad u soo baxeen xarakaadkan jihaadiga ah al-Qaacida iyo ISIS iyo rag la midka ah nimankan reer galbeedka ahna maraakiis cilmi baaris iyo u sameeyeenba jaamacad badan baa wax ka qora بحوث بدن bay ka sameeyeen Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala iyo kutubtiisa iyo manhajkiisa ruuxantii waayadii hore qaab negative oo khaldan oo maaragtay oo salbi ah bay uga hadlayeen marar badan bay waxay uga dhigayeen saldhig ama inuu sabab u yahayba xarakaadkan hadda jihaadiga ah inay kulli ku ta'athursan yihiin ba fikriga Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala laakiin sanadkii 2005 bishii Abriil 8 ilaa 10 jaamacadan Bristol ee Mareykanka ku taala baa waxay qabatay runtii mu'tamar ay ku soo bandhigtay baxthi buug markii daba noqday aad iyo aad runtii u qiimo badan oo loo bixiyay Ibn Taymiyyah iyo casrigiisa Ibn Taymiyyah wa casruhu buuga waxa ka heli kartaan Amazonka iyo ama online-ka ka gadan kartaan ilaa $10 $16 meelaha soo jooga buugaas jaamacadda Bristol baa maaragtay waxay u dirtay ilaa iyo 12 baaxith oo Mareykan iyo reer galbeed iyo Yurub taasi Ingiriisi u dhashay inay qoraal ka soo qoraan Ibn Taymiyyah iyo manhajkiisa iyo fikirkiisa iyo qaabkii loogu ta'athuray ilaa 12 beebar ama 12 research bay ka soo qoreen iyo hordhac laba nin oo muslimiina baa runtii taxriirisay oo qoray ninna waxa la yiraahdaa Shihab Ahmed waa uu dhintay ninna Yusuf baa la yiraahdaa mid jaamacadan London buu wuxuu ka ahaa professor taariikhda islaamka dhiga ninna jaamacadan Harvard buu wuxuu ka ahaa macallin kadibna waxaa tarjumay nin Jazaa'iriyana oo Abu Abdullah la yiraahdo hadda waa uu nool yahay buxuusaas marka waxa la soo saaray ayagoo buuga 2010 waxay kaga hadleen marka Ibn Taymiyyah iyo manhajkiisa kadib waxay kaga hadleen Ibn Taymiyyah iyo cilaaqada uu la leeyahay Xanaabilada kadib Ibn Taymiyyah iyo maaragtay raadkiisii iyo kutubtii uu ka qor caqiidada dhinaca fiqiga dhinaca tafsiirka waharum majarra waxa la yiraahdaa kitaabkaas oo Ibn Taymiyyah wa casrihi aan xalaqadan ugu magac darnay dad badan oo reer galbeed oo indhaha u fiiqay dad badan oo reer galbeed ah waxay ogaadeen xaqiiqada Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala iyo waagi hore si khaldan in looga hadli jiray kitaabkaas wuxuu insaaf u sameeyay wuxuu u cadaalad sameeyay Ibn Taymiyyah iyo taariikhdiisa Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala wuxuu ahaa nin u banbaxay oo umrigiisa iyo naftiisaba u waqfiyay diinta Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu difaaco inuu wax ka qoro inuu cadeeyo waajib iskaga dhigay ama sacrifice u sameeyay islaamka iyo difaaciisa waxaana keenaya waaqici uu ku noolaa kii siyaasadeed iyo kii fikri iyo kii ijtimaac iyo waaqica amniga oo markaa muslimiinta ay ku noolaayeen markuu dareemay in islaamka handadaad ku jiro wuxuu ka qayb galay dagaalkii tataarka lagu jabiyay wuxuu ka qayb galay ninkii la dhihi jiray Ghazan Maxamuud Ghazan la baxay oo wuxuu ahaa nin tataara markii islaamka uu laba jeer soo weerareen oo waxba ka qaban waayeen buu wuxuu yiri waa islaamay maxamuud baa la yiraahdaa buu yiri markaas ciidankiisa inta soo kaxaystay Dimashq la yimid islaamkii oo dhan baa markaas laba u kala jabay war nimanka waa muslimiin iyo ma ahan muslimiin ma ahan way ku gambanayaan hal iska celiyo Ibn Taymiyyah marka wuxuu ahaa ninka yiri nimankaas muslimiin ma ahan hal iska celiyo muslimiintii buu baraarujiyay madaxdii buu la hadlay culimadii buu kiciyay xataa wuxuu u tagay sultaankii weynaa oo Masar haystay Iskandariya ugu tagay inuu ka qayb galo dagaalkaas wuxuu ka qayb galay macrakada cajiibka ah oo la dhihi jiray Shaqhab ama la dhihi jiray Marjal Sufr 702 dhacday oo muslimiinta ay guuleysteen waxayna ahayd dagaalkii ugu dambeeyay oo tataarka iyo islaamka dhexmar oo tataarka lagu jabiyay buu ahaa Ibn Taymiyyah qayb badan ka qaatay baraarugooda asaga iska lahaa asagaana culimada iyo waliba calanka u siday hormoodna uu ahaa Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala islaamka wax badan buu u taray wuxuuna soo maray xilli ay ilbaxnimada islaamka aad u tabaryareed ee xanuunsanaysay daaqaduhuna u dalacay si afkaarta khaldan iyo gumaysiga uu ugala dagaalamo
hadda dadka nool oo kaba mid ahba dad Soomaaliya dad maarata xataa Mareykankan ku nool oo inta lugaha isa saarta u dhahay Ibn Taymiyyah sidaas uu ahaa Ibn Taymiyyah muslimiinta dhiigoodii buu baneeyay Ibn Taymiyyah argagixiis uu ahaa dadka noocaas runtii waxaan kula talinayaa inay akhriyaan kitaabkaas xataa reer galbeedka ay qoreen Ibn Taymiyyah wa casrihi asagoo Ingiliisha asagoo Carabiga waa helaysaa waxaan kula talinayaa marka Ibn Taymiyyah ka sheekeynayaan ama ka hadlayaan inay ka fiiriyaan kutubtii uu qoray guud ahaan inay fiiriyaan asaga maraaxishii uu maray waqtigii uu dhalinyarta ahaa waqtigii uu odayoobay waqtigii uu kabcay waqtigii uu bislaaday xagga fikirka waxaan kula talinayaa inay fiiriyaan duruuftii uu ku noolaa waxaa khalad ah inaad fatwo kaliya soo qaadatid oo aad ka dhex siibtid waaqicii ku dhex nooleed waa inaad marka fiirisaa waaqicii ku nooleed sababtii waxaan uu yiri ciddii uu ku yiri maaha marka fatwo uu u diray maaragtay reer Dimashq in inta la soo qaato hadda u dirtid reer maaragtay Soomaaliyeed ama Muqdisho fadhiya ama Boosaaso fadhiya xaq maahan laana fataawidu waxay leedahay zamaan iyo makaan iyo sabab loo yiraahdo leedahay waxaan kula talinayaa marka dadka muslimiinta ah dadka ahlu cilmiga ah dadka waxgaradka ah in Ibn Taymiyyah fikrigiisa ay si qoto dheer u akhriyaan si mug leh inay u akhriyaan kutubtiisa inay ka fiiriyaan jawaanib kala duwan dadkii khusuumtiisa ah maxay ka yiraahdeen culimadii amaantay maxay ka yiraahdeen insaaf iyo cadaaladna loo sameeyay Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala wa ila liqa'in aakhar wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh